السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا فنانكي مساء الطوري مسي سكورتي أوفيشالكي بجيس الأورنجري يديكي الهديدي مسي فنانكي الهديدي إنو مركا iska gabay oo heesaan qalabyo tababaryo qalabyo umay heesaan iska hees gabaya untiriyo ayaa waxaan yidhi aaska debidii qofka waan beerno reeraha aakhiro waa dhir ka mid ah geedaha aaska debidii qofkii waan beerno reeraha aakhiro waa dhir ka mid ah geedaha aabasiyaad baynu ku ladnayno debidii cuntada iyo khudradda iyo xashiishada iyo jaadka la cuno ee la xaaro maaha mamnuuc sida kuwa tarabaanaha ayaamahan waxaa igu cusub dad iyo gabdho iyo dumarka kintirkooda iyo futadooda oo ah cunto iyo qaad la cuno ayaamahan waxaa igu cusub dumarka kintirkooda iyo futadooda oo ah cunto iyo qaad iyo xashiishad la cuno laga liso shahwadda iyo caanaha ariga sidiisii dadka la cunayo la xaarayo iyagoo qaadiyo cunto ah waa dhir lagaga soo gooyay xabaalaha majarafadaha aadmiga ma nabadgeliso iyagoo geedo iyo cunto iyo xashiishad jaad ah aad ka soo goyso xabaalaha aadba ciidanka kugu dhow ood u soo sheegto kuwa xabaalahoo geedaha soo gooya oo dhirtaas waa xashiishadaha anaa markhaati ah kuwa falaalkaa geysta waa kulmisyada ah jabhadaha aan ku dhaariye wixii xun iyo cadaabaha dhibaataysan aakhiro iyo jabhadaha kulmis lama qariye maad noqoto sheegaha haddii sababo kale iyo xabashi kale iyo meel walba iyo wax walba oo uu jin insi xayawaan asalkiisa ka yimi haddii sababo kale iyo xabashi kale ayuu jin insi xayawaan wax walba asalkiisa ka yimi sida libaahayo oo libaha wax walba ugu boqorsanoo ku dul sawiran calanka Itoobiya iyo xabashiyadaha asalkiisii libaaxa wax walba ugu boqorsan iyo wax walba wuxuu ka yimi xitaa marka la eego adduunyooyin kale wax walba asalkiisa wuxuu ka yimi xitaa adduunyooyin kale marka la eego teenoma asalkiisa wax walba wuxuu ka yimi Itoobiya kale xitaa iyo xabasho kale marka adduunyooyin kale la eego oo libaaxoo ku dul sawiran calanka Itoobiya oo libaaxa ku dul sawiran calanka Itoobiya iyo dowladaha ayga iyo libaaxa iyo xayawaanka dad cunka ahi
ayga iyo libaaxa iyo xayawaanka dadcunka ah buu ka tafirmaa ayga iyo libaaxa iyo xayawaanka dadcunka ah buu malakamoodku ka tafirmaa oo quburo dad ah oo sida kalluunka qasaadaysan buu ka iibistaa supermarketka iyo suuqyada alaabaha awliyadii nebi ismaaciil oo wiil uu dhalay ka bilaabaya in dadka lagu qalo sariibadaha agagaarka waxaa yimi agagaarka waxaa yimi maaha ayda iyo libaaxyada iyagoo dad ahna cuna iyagoo dad ah dadkan caadigeena cunaya ayda ka yimo maaha ayda iyagoo dad ahayna cuna inagoo jaad iyo cunto iyo xashishada ee nagu dhiga cunaa agagaarkii maxaa yimi maaha dadkan caadigeena cuna waayo dadkan caadiga libaaxa ka tafirmo waxa uu yimi ambiyadii nebi ismaaciil waxa uu yimi mid isagoo ambiyadii nebi ismaaciil waxa uu yimi maaha isagoo dadkan ina cunaa ah inagoo jaad iyo qaad iyo cuntaa iyo xashada waxa uu yimi mid isagoo qof ah maaha mid isagoo dadka caadiga ina cunaa waxa uu mid isagoo qof ah haddana baalalsi leh oo arigun jiri jirin u wada nebi ismaaciil markaasuu ku yidhi nebi ismaaciilo dadka ka daaya gowraca dadkoo la gowrac ilaa ariguna jiri jirin buu u keenay neefkii ugu hore nebi ismaaciil wuxuu ku yidhi dadka ka joojiya in la qalo oo ku bedela xoolaha ayatiin waxaa lahoo wax walba ayatiin waxaa leh oo wax walba ugu saxsan dalka hooyo oo ah Tigray iyo Soomaali iyo Oromo oo Amxaara xabashi Itoobiya iyo kulmis baa cadow ahoo xabashi waa cadowgeen oo maaha walaalaha aakhire waxa ku saabsan buu dagaalka u dhexeeya saddexda meelood maakhir state iyo Somaliland iyo Khaatumo state aakhiro waxa ku saabsan buu dagaalka u dhexeeya saddexda beelood maakhir state iyo Somaliland iyo Khaatumo state u eegyaho oo waa kuwa isku dhammaada habeen iyo maalmaha dagaalka Khaatumo iyo Somaliland ka dhex socda dadka indhaha waxa ka arkaan oo dad badan oo indhaha ka arkay sheekooyinka aakhiro dadku kama xanaaqan kaftan bay u yaqaaniin waa la isku xanaaqay dadku waa geesiyiin aakhiro kama maqan marka aan wado iyadoo ay dadku geesiyiin yihiin iskuma dagaalaan sheekooyinka aakhiro iyagoo walaal ah bay xabaalaha u yaqaaniin kaftan iyo gabay iyo filin iyo riwaayadaha aaminsan yihiin inay qubuuraha iyo diimuhu ugu yar yihiin fanka iyo heesaha
arday filinka la yiraaho weyn arday filinka la yiraaho weyn baa ka hadla arday filinka la yiraaho weyn baa ka hadla inaysan dhilooyinku ardayda arday filinka la yiraaho weyn baa ka hadla inaysan dhilooyinka iyo aydu iyo dibjirku u soo dhowaan karin ardayda xafiisyada iyo qoysaska iyo maxkamadaha adeeraya ayaa tusay Luula Cabdilaahi oo dhibaataysay qoysaska adeeraya ayaa tusay Luula Cabdilaahi oo dhibaataysay qoysaska iyo maxkamadaha sida Sayid Cali iyo aabihii dhilooyinku dadka iyo ardayda ma soo arki karaan waxashada aragtida ka badasho u samaysa kuwa ayda oo nagama soo eegi karaan indhaha filinka arday baa ka hadla filinka arday wuxuu ka hadlaa horta filim waxa weeye sheekadu marka ay dembi dhaafto dembi ka weynaato saldhigyada iyana sheekadu marka dembi dhaafto waxaa ku qoran baan u malayaa dembi aan suuragal ahayn filin iyo riwaayad baa ku qoran marka ma intelligence ba xitaa anigu waxa kama aqaan waa intelligence weyn weeyo sheekada dabciyan finaan baa ku dhex jira sheekadu marka dembi dhaafto waxaa ku qoran filin iyo riwaayad marka gabdhaha suuq iyo dibjirku iskool xafiis hadday soo agmaraan gabdhihii suuqa marka iskool yimaadeen dugsigii waxay ka sameeyeen baa u malaya dembi aan suuragal ahayn saa ogeed dembiga aan suuragal ahayn ee ardayda ka soo dhacay dembiga aan suuragalka ahayn waxaa ku qoran filin iyo riwaayado filinka arday la yidhaaha la alifay marka Luula Cabdilaahi gabdhaha suuq qoysaska sida Sayid Cali aabihii qoysaska dugsiyada Sayid Cali aabihii qoysaska dugsiyada xafiisyada maxkamadaha ma soo agmari karaan oo indhaha dadka male xashad baa indhaha lagaga bedelaayo kuwa aydu gabadhilooyinku indhaha dadka male guri weligood miigil dadka waa laga fogeeyaa marka dadkii bay dhibaatooyeen askarta uma dhawaadaan iyo annaga film starska toorayaasha oo annaga filimaanta oo annaga fanaaniinta ah xidigaha dhulka xidigaha dhulka fanaaniin laa Victoria Maris waa fanaaniin aan garanayno fanaaniin laa saraakiishu waxay xirtaan annaga hobolada xidigaha أتورانه إن الله علي عظيما أتورانه إن الله علي عظيما قرآن كوبيره صحيحو إن الله علي أتورانه إن الله علي عظيما قرآن كوبيره صحيحو في السكس بان فيلمان تورنا حتى بان كوحاولي هاكم فرديان ما ترونا ما فينا سكس حتى فينا سكس فينا سكس بابور وويني سير كمان نحكي شو ما نحكي شو لكن سي بابور فينا سكس حتى هكا كفر يعني علي عظيم من علي بابور وويني سير كمان نحكي شيء ضدك يا حيوان
iyo wax walba ayaa ka dhasha siilka ayaa ka dhasha oo ka soo baxa siilka iyo naasaha من درا أنا فيلم ستارز كوا حدقها يا أيضا قاطن بيني هنا حشيشة ممنوعة حشيشة وفنانة عن ألفي حشيشة وفنانة عن عنو ألفي وانكاوين هو يقر ويرا آمنوا فنان مساء الطارئ فنان مساء الطارئ حدان مغشو آمنوا فنان مساء الطارئ حدان مغشو وبغرو فنان مساء الطارئ حدان مغشو وبغرو وسيدا أي نوع حلان روايدها iyo filimaanta iyo xashiishadaha aamino fanaan masaac toora haddaan maqasho waa boqorro oo sida ay nooga hadlaan riwaayaduhu iyo filimaantu xashiishadaa naga sheekaysa iyo siyaasadaha abaarso wajaalatii dabadheer oo abaarso wajaalatii dabadheer oo kale lagu arkay oo weligeed abadan roob kama joogsan jirin sida Addis Ababa oo qorax kama soo bixi jirin oo laguma arag abaaraha آمين ألو نو آمين آمين ألو نقص عيري وقتي برواقريو نبضع آمين ألو نقص عيري وقتي برواقريو نبضع أرنتي فرحة الله هذه أنا صرانتو بحين جرني أرنتي فرحة الله هذه أنا بحين جرني بس يادي أبحك عنك السلامة أقاسمياشين لها شرفاء أيام دروا حالي تصيدتك انتي oo aabbahay xidhiidhi kamid yahoo socda oo soo noqday socdan ee aan soo ogaado oo soo xaqiijiyo inuu nool yahay hubaalaha alaalada gaarka xabaaluhu waa ay adduunka ka waaweyn kuwaasoo i tusay alaalada gaarka xabaaluhu وحيوان أي أهو أدونك كواوين كواسو تصي إنا بانت هاي جيرادة كنت مع باي عديدي سندان أبابلو كدقاليا مسكح ليدا كدح قيريا وها إيواليا ويقسمي عدوينا بشيء محارية جبهد كلمس وعبدا عربها الشباب باقي يدشوه الشباب باقي يدشي أنا على علي عظيما كواسو الشباب باقي يدشي أنا علي عظيما كواسو كويوها علي أدونتي مديان أبو دبي ناشونال هوتيل باليوسودي أبو دبي ناشونال هوتيل
kambini baa liigu soo dilay oo waxaa ka mid ahaa adeerka cali ismaaciil xuseedi jiidadii xiga idaha afar xayawaanoo isku midab ah sida ay u wada dhashaan afar xayawaanoo isku midab ah sida ay u wada dhashaan waa la sameeyo sidii hore looma maqlo looma maqlo oo waxay ahaa oo madowga ii ekaa hawiye afrika iyo dubeys iyo ciisaa alif ba baan qur-aanka oona alifay ka bilaabay alif ba baan qur-aanku alifay ka bilaabay soo cali miihii oo ma madoobi سؤال مي ومن مدوبي بورت عالمدو يا يعد يدا ورسنجل اسمها إبراهيم قبيبوت كدقان وطالو وبورت عالمدو سؤال لميرا من مدوبي بورت عالمدو ورسنجل يدا يدا اسمها إبراهيم قبيبوت كدقان وطالو أنيقا الله علي عظيما oo waatan ku dul sawiranahay hooyada xawataa ka gelinaho ee xambaarsan lacagaha alcayn imaaraadku adeerkay cali xudeed igu soo dilay oo wuxuu ahaa caliga cagaha ee reer jabuuti ee laga boqo wixii lasoo shaqaystay loo geeyo oo caliga cagaha oo ah adeerkay cali ee wixii lasoo shaqaystay loo geeyo reer jabuuti wuxuu igu lahaa qiimo magaciisa la yidhaaho laba ab wada gala iyo wada walaalaha oo aan ku soo hadal qaada heesaha oo inta la israaco lasoo wada dhasho leeda sariflaha sarif magaciisa la yidhaaho laba ab wada dhalay lacag maahe waa la israacay waa lasoo wada dhashaa oo inta la aado oo inta la israaco leeda sariflaha abjir quraankiyo abnimo jiro ma oran kartid walaalo maaha qiime la yidhaaho intaan heesta laba ab wada dhalay iyo wada walaalaha kusoo hadal qaado oo ah intuu caliga cagaha igu lahaa oo ay noqoto walaalnimadu qiimaha halkaasaan kusoo koobay walaalaya muddo halkaasaan kusoo koobo muddo hadda 12 sannadood ah waxaan ku sugnaa tuulo magaceed la yidhaaha baran oo ay warsangeligu degaan hooyadii walaalahay way xun yihiin ma oran karayo iyagii ma hadlayaan taalooyin security-ga annaga tolayaasha ah stariska xidigaha ay ciidanku qaataan waxaan falaha baadduwarka noocaada taalooyin waxaan falaha oo baadduwari soo yeelan dagaalama ayaa ka dhex hadlaya dadkii ehelkii oo wax walba cagsigu leh 12 sannadood ba magaalada baran ku dhibaataysan bes waxaan ka garanaya cadowyadu telefishinada lacag isaga soo balan qaadan ninkii hebel soo dilay lacag baan siinaya ninkastaa
marka waxaan u malayaa telefishinada soo lacag la iskalama soo balaqada ninka soo dira lacag baan siinaa lama yiraahdo aniga daarood ismaaciil xudeed waxa igu abtirsaday intii ugu ganacsiga weyneyd waxa weeye warsangeli dishish iyo majeerteen iyo isaaq intii ugu ganacsiga weyneyd baa aniga daarood ismaaciil xudeed igu abtirsada oo 12 sannadood igu ilaashada baran say dilaan telefishinadana waxaa uga soo qaataan marka dad aanan garanin xabadii sigaarka ay ka qaatan waxaan rabaa in la isoo qaaraan oo sir ah aan meesha uga dhunto liiga dhoofiyo yurub ama maraykan iyo geel anigoo jeclaa in adduunkan isaga safro iskaga tago jabhada igu soo ogaaday jabhada iyo waxaan falaa aniga iyo reer xudeed waxaan oo badannahay reer xudeed waa alaalaha shurda ilaahay nagana noqdee ilaahyada bilayska iyo ilaahyada fanka marka ilaahyada fanka iyo bilayska oo aan ka mid ahay waxaa u aadooba jabhado iyo waxaan falaha iyo dadka xiran xabsiyada ku jira kuwa soo baxsada anigay soo doondoona marka waa dadku nin waanan bay ugu sheegeen ise waxba ma qabo maskaxdeeda laga dhex qeyraya aragtida dadku arkaana aragtiba ay dheeraada oo waxay ugu soo kordhay dad cuntaahoo la cunayo deejaadaha baa igu soo kordhay marka somaliland oo ka baqaysa libaaxu waa taalo wax cunayo libaaxu dadkan caadiga ayna cunaya dadkan caadigee inagoo jaad iyo cuntaa cunaya maaha libaaxii ugu yaraa wuxuu ahaa alle mise malagii baalasha lahaa ee nabi ismaaciiloo wiilow dhalay inuu dadka ka bilaabo doonaya wiilow dhalay qalaya ayuu yidhi malag baalale mid isagoo qof ah baalal siile ayaa nabi ismaaciil u yimi oo ku yidhi dadka ka daayo wiilka dadka ka daayo ari bilaaba marka malag maaha dadkana mid libaax mise ay mise harcad mise waraaba ah dadkan caadiga inagoo jaad cunaya maaha mid isagoo dadkan caadiga haddana baalal siile wuxuu ahaa malagii baalasha lahay neefka ariga ah u waday nabi ismaaciil iyo ku yidhi wiilow dhalay dadka gooraca ka daayay wiilku ariga bilaaba marka libaaxa waa laga baqaayo libaaxi ugu yaraa wuxuu ahaa malagii mise allihii baalasha lahay nabi ismaaciil u yimi ee neefka u keeno yidhi dadka ka daaya qaliinka ee ariga bilaaba arrimay jiri lahayna dadka hadda la qali lahaayo marka somaliland oo ka baqaysa inay libaaxa soo hadal qad libaaxu waa taalo dadka jaada cunaya waa libaaxu inuu dowladdu way ka yara baqaano libaaxa calaamaday ku sawiran iyo lacagaha ku dul sawiran xayawaanka dad cunkaa waa ku sawiran wixii dadka iska weynaysiiye oo alle ka mid yahay asalkoodu waxay noqdeen ay sidaas dadku wax lama aha malakamoodku wuxuu badnaan xayawaanka dad cunkaa libaaxa ay waraaba u badnaanayo dadku khasaaraysa kalluunka iyo malakamoodku supermarket ka qaataan oo dadku wax lama aha oo xayawaanka dad cunkaa wey marka somaliland baqaysa way oran kari weyday waslad dad ah oo la cunaan ma somaliland waxay warka ku soo qortay war beriya dhexdaas somaliland waa waslad dahabiya somaliland waa waslad dahabiya warka ku qornay haddii yidhaahin somaliland waa waslad dad ah libaaxay ka yara baqeen dadkan inagoo jaada cunaya ka yara baqeen haddana waa cagis libaaxii inuu dadkan inuu libaaxa ah ayna cunaya
iyo wax walba libaaxan cunaya dadka nabadtaada cunaya iyo cuntaa laftiisa marka wax ku dhaceen dowladdu u yimi haddana waslad dahaba waxaan kusoo fasilnay dowladdaad baqaysa ma ku fasilnay ma oran karaan wasladadan haddana waxaan ku fasilnay dowladda waa laga baqayo lama maqashiyo in dad la cuno dembi weeyi libaaxa iyo ayda wax sii cuna markana wax libaax iyo ayda cuna ayay jira iyagana waa la cuna libaax iyo aydu marka la cuno libaax iyo ayda iyaguna dowladda u yimid haddana waxaan kusii fasinaynaa waslad dahaba dowladda laga qariyay in dadka la cuno oo libaaxa way dilayaan baa male libaax iyo ayda way sumeeyaan oo libaax laftiisa marka wax ku dhacaysna dowladdu u yimid inay dowladdu ogaatay libaaxa oo ay dilayaan haddana waxaan kusii fasiraynaa waxaan joojiya warar badan oo aan soo qori jiray inaan yareeyo ayaan rabaa somaliland markii oran kari weyday wasladada ah baan nahay miinay ka baqeen marka haddaan warar badan oo mucjisooyina anigu aan soo qori waayo waxaan indhaha ku arko indhaha wax ka arkaa filimaantu dhaladu way la hadlaan filimaantu waxaan arko markaan soo qoro miinaa qaraxi karta marka wararka caadigaaba wasladahaba waxaan kusii fasil lahaa inaan somaliland la baqo wararka caadigaha u daayo anigu wararka joojiyo see miino oo qaraxi weyn markaas wadaadadan intaa waa qaraxinaya ee dagaalamaya ayaa sheekada mar fasilo waxaan idhi markii laga bilaabay taariikhdii dowladda aabasiyadii aaba morgan aaba caydiid iyo gaani caasimada dabadood in dowlad la asaaso waxaa laga bilaabay dowladda cabdiqaasintii cabdilaahi yuusuf baa ku xigta dowladda cabdiqaasin iyo cabdilaahi yuusuf ka hor dowlad may jirinoo baabuurta safarka markay wax yar socoto dad isbaara dhigtay dariiqa ayaa lacag u laabi jireen dadkaasna lacag bay qaataan isbaaradii furan isbaaradii amiinaday dadka ka furi jireen laakiin dowladda cabdiqaasin iyo cabdilaahi yuusuf markay dhalatay waxaan warka aada ugu arkayay nimankii isbaarooyinka dowlad baa dhalato waa la eriyadii nimanka isbaarooyinkana haddii la eriyado haddii nimanka isbaarooyinka wax walba maqlaan lacag in la siiyo unbay maqlaan haddii lacag la siin waayo ka badan lagu yiraho ay ka mid tahay waa la eriyadayda miinadii aan qaraxiyaan marka waxaan idhahaa shabaabta miinada qaraxiya waxay la shaqeeyaan isbaarooyinkii la eriyadii isbaarooyinka haddii lacag la siiyo unbay tagaan laakiin wararkii telefishinada waxaan ku arkay isbaarooyin baa la eriyadii isbaarooyinkii markii la eriyaday miinay bilaabeen inay qaraxiyaan haddii wax walba isbaarooyinka lagu yiraaho ay ka mid tahay wararkaan telefishinada ka maqli ahaa waa la eriyaday miinadii qaraxinaya marka al-shabaab waxaa kasii dambe isbaarooyinkii la eriyaday baan oo malaya ilaahay naga qabto dadkii bay lugooyeen nafta u keeneen aad baan idin salaamayaa walaalayaal waxaa rabaa in laysoo gurmado laysoo qaaraamo waxba ma haysto waan dhibaataysanoo dagaalaha indhaha iga ka socda shanta qaaradooda adduunka maskaxda yar baan dhex socda maskaxdayda isheeradeedu jaadka samaysan baa dariiqa lagu yiimiyayo shanta qaaradooda adduunka maskaxda yar baan dhex socda maskaxda xabaalo ku tala maskaxda yar baan dhex lugeynaya waa lala dagaalamaya sanadkii 2001 baa layga soo raacay
waxaan waalinadan laygu bilaabo dhakhtarka maskaxda lagu ilaaliyaayo anoo albaabi lahaananaya shirkad batrool la yidhaahdo Abu Company for Oil Operations waxaan insahay inuu security la dagaalama ilaha marka shaqaale hoteelka waxay u sameeyeen shirkadu waa batrool security gaar ciidanka shalmast baan ahayo shirkadu waa batrool isa saliid aad ka baa la yidhaahdo Abu Company for Oil Operations shalmast Abu National Hotel shirkadii batrool ma tahay isa saliid ma tahay batroolkii saliidu waa shaqada tamaanaha midyaha marka guryaha midyaha tamaanaha marka qof walba waxaan xasuusinaya guryaha tamaanada midyaha marka uu galay waxun baa lagu sameeyey marka shirkada Abu Company for Oil Operations aadku waa shaqa tamaana markii aan galay albaabka security gaarka waxun bay igu sameeyeen waxaa kamid ah kuwa wax igu sameeyey gabadha habar walo qoranto jina oo shaqada magaceeda la yiraahdo ashbaro oo shaqada wax iga qortay iyo Nasir al-Shamsi oo imaaraad ku dhasho shaqada wax iga qoray iyo Ali Rabbi oo Yamanida imaaraadka wuxuu sheegtay inuu Rabbi yahay iyo mid cideeda warsagila Ismail Ibrahim Gabyuud ka sheegto liiraha Ahmed Muuse Siid marka miyaa lagu naanaysaa سواء isaga muusidariye karta filmen nafta ay keenano imaaraadka weeraraya marka sheekha imaaraadka hala soo qabto toos looma odhan sheekha imaaraadka boqorka imaaraadka hala soo qabto toos looma odhan si sidaa waxay dadku iskula fahmeen oo la aasaasay musharax madaxweynaha Puntland madaxweyne Sheekh Doon baa la aasaasay Sheekh Doon meenaha madaxweynaha musharax madaxweynaha Puntland mudane Sheekh Doon meenaha waxaa laga wadaa in sheekh la doono oo soo qabto toos looma odhan musharax madaxweynaha Puntland Sheekh Doon baa la aasaasay walaalayaal sidaasay noo tahay